بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan soo imaanay kulan aynu ku yeelanayno jaaliyada beesha Surre degan magaalada Nairobi oo laga hadlay baaq nabadeed oo ku saabsan gobolka Hiiraan. waxaan noo furay shirkayaga Sheekh Ahmed Sheekh Muuse. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صدق الله العظيم. waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yiraahdo inaan meeshan baaq nabadeedna ka soo jeedino waxyaalaha aan shirkan u qabsanayna aan ka hadalno. marka hore ilaahay baa mahad iskale. meeshan waxaan u nimid arrin mushkilad wax badan soo noqotay kana dhacday dhulka Soomaaliya gobolka Hiiraan degmada Beledweyne ka dhacday. markuu horeyso waxaan u jeedinaynaa oo aan cudurdaar uga sameeynaynaa oo u mahad celinaynaa ciidamada AMISOM khaasatan ciidamada Djibouti madaxda dawladda shacabka dhammaantood dhibkii ka soo gaaray magaalada Beledweyne. waan ogsoonahay magaalada Beledweyne markay imaan hayeen AMISOM oo Djibouti imaan hayeen dhibaatadii ay ku jirtay iyo dadka jooga waliba dhanka bari dadka jooga dhibaatadii haysatay aad baan u ogsoonahay. inta wax garanaysana way ogtahay waxa ay ka qabtaan nabadgelyada ay ku soo dabaaleen. waxaan ogsoonahay maalin walba meydka webiga lagu soo ridi jiray iyo inta madaxda ah oo nin walba uu ka carray magaalada oo xamar uu joogay uusan soo gali karin. haddana waxay ka dhigeen magaalo aamin oo nabada ay ka dhigay. nabada ay ka soo rideen aad iyo aad ay ugu mahasanaayeen. laakiin nasiib darro waxaa dhacday dadkii ay aad iyo aad ay u soo barbaariyeen oo si khaas ah ay u soo tababareen ciidamadii ay soo tababareen hubkii ay siiyeen dhaqaalihii ay siiyeen oo aad u qabtid inay si khaas ah dhinac kaliya ama beel kaligeeda inay xoogooda ay saareen haddana xaggooda dhibaato uga timaado annaka oo aad uga xun oo dhib aan geysanay ka tacsiyen mayno kala midkeed mayno. laakiin maadaama deegaankeenagi ay tahay waxa ay ka dhacday ayaan waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibkii ku soo dhacay jidgeeyadii ku dhacday iyo dhibkii loo geystay mudaharaadkii lagu sameeyey astaantii wadankooda oo calankooda la gubay intaasoo dhan wayna dhibaysaa. waxaana leenahay walaalayaal ka raalli ahaada wixii idiin geystay dhibkaas haddaysan idiin garanin wixii aad u garateen wixii aad u geysateen wixii wanaag aad u geysateen haddaysan idiin garanin annaka oo aan idinka tirsanaynin dhibaato wixii aad u geysateen badankeedii. laakiin waxaan idin leenahay walaalayaal dhibkaas idinma qabanin idinmana garanin. Soomaalida waxay yiraahdeen bahal ninkii barbaarsha bahal nool ka baxsay ama boqnogo. dadka soo barbaariseen oo wax badan aad u geysateen ayaa taa idin geystay. laakiin waan ka cudur daareynaa waxaan leenahay ka raalli ahada dhibka idin geystay. dawlad iyo shacabba waa in kaga cudur daareynaa. inta waxaan uga baxayaa Djibouti. ilaahay baa mahad kale waxaan u celinaynaa dawladda wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ayaan u mahad celinaynaa. dhibaatada ka dhacday gobolka 2 sano socotay way isku dayeen wax badan bay isku dayeen 2 goor camal bay isku dayeen in ay dhax galaan inay wufuud diraan inay dad diraan way dadaaleen. laakiin waxyaalaha ay sameeyaan ma aysan soconin. waxyaalaha ay ku socon waayaan waxyaalaha aan sheegi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan leenahay wasiir waa dadaasheen ha noqoto dawladdii saacid ha noqoto dawladda wasaaradda hadda joogta ha noqoto labadii marba. waxaan xasuusinaynaa ummadda Soomaali waxaan xasuusinaynaa dawladda waxaan xasuusinaynaa in 2 sano oo dhibaato ka socotay deegaanka degmada Beledweyne khaasatan tuulooyinka Kamxalley iyo Deefow taas oo dhibaato badan ay ka dhacday. madaxweynaha uu tagay dhowr goor uu meeshii tagay 12kii madaxweynaha waxa loo tagay asaga oo dhibaato dhicin baa loo tagay. waxaa la geeyay dokumentigii lagu lahaa dhulka lagu lahaa kii beeraha lagu lahaa ayaa intaaba la geeyay oo loo geeyay mataqaanaa in dawladdu ay wax ka qabato. dawladdu way ka gaabisay waxba kama qabanin. 12kii bishii 12aad 2013 waxaa dhacday weerar inuu dhacay oo lagu gubay tuulada Kamxalley. waxaa ka soo horeysay cabasho badan oo loo gudbiyay dawladda loo gudbiyay in ay wax ka qabato inay ku soo socdaan weerar ku soo socdaan in awood ku soo socoto
tuulada kamxalliga waxaa la gubay 12 bisha 12aad 2013 baa la gubay gubideeda waxaa la og yahay dadka deegaanka og yahay marqaati ka yahay wufuudi la bixiyay og yihiin wixii lagu gubay inay ahayd awood ciidan iyo mid beeleed oo la isku daray hubkii dawladda oo lagu gubay wixii ma taqaana ay saar dawladda lahayd oo lagu gubay intaas dhacday ha dhacdo oo wax way dhacaan oo qalad ugu dhaca dawlad baa joogto madaxweyne baa joogo waxa looga baahnaa dadkii ma laga daba tagay dad baa dhintay dad baa guryahoodii la gubay dadkii baa duur ka galay wabigii baa la maray dawlad jirtay ma ka daba tagtay waa su'aal meesha taagan maxay uga daba tagi weyday lagama daba tagin inta markay dhacday dawladda wafdi bay soo dirtay deebti bay tagtay dhulkii la gubay bay tagtay beerihii oo la raranayay tagtay basashii oo la baxay tagtay geedihii oo la goray bay tagtay leentii oo la goray bay tagtay bayaan bay ka soo saareen qoraal bay ka soo saareen way soo gudbiyeen waan haynaa markii loo baahdana waan soo bandhigi karaynaa dawladda 15 maalmood inay dadkii ku soo celinayso guryahooda ayay ballan qaaday inay macaawina ka dabageenaysay ka ballan qaaday inta mid ma dhicin yaa sabab u ahaa yaa hor istaagay taas waxa way waxay u taalaa dawladda u taalaa madaxweynaha uu mas'uul ka yahay maxaa yeelay dadka gobolka jooga asaas soo magacaabay gobolka waxaa degan 14 beelood baa degan gobolka Hiiraan 14 beelood oo deganeed madaxweynaha asoon cidna kala tashanin ayuu hal beel u soo magacaabay halkii beel waxay noqotay wixii macaawina imaan lahaa inay hor istaagto dadkii la barakiciyay in la soo celiyay inay hor istaagto in badalkoodii dad kale inta la abuuro laga dhigo ayaka laga dhigo oo hay'adii xoolo looga qaado la yiraahdo dadkii meesha laga soo kiciyay kamxalay laga soo kiciyay ayaa wax la siinahayaa oo tuulo la yiraahdo dawla ablika loo bixiyay dad lagu soo arooriyay oo ayaka laga dhigay qaxootigii la gubay in laga dhigay cadaalad ma aha madaxweynaha doodku u dhaartay dawladda u dhaartay kitaab uu maray nabiga wuxuu yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi qof kasto oo madax laga dhigo waa mas'uul ummadda loo dhiibay mas'uul ka yahay mas'uuliyadaas madaxweynaha ka sugeynay ma uusan sameeynin ninkii gobolka joogay Abdi Faarax Laqayo oo joogay asaga soo magacaabay hadii waxaan dhacay haduu asaga ka qayb qaatay inuu bedelay ahayd ma uusan bedelin taas su'aasha wixii loo bedeli waayay madaxweynaha iyo inta wax garanayso oo Soomaali ah ayaan weydiinaynaa sababtoo ay tahay meelaha ka hooseysa asaga dawlad goboleedyo ayaa wax ka dhacaan wixii ka dhacayna si dhaqso ah loo xaliyaa Puntland waxba ka dhacay isla markaas madaxdeeda iyo aqwaashooda way tagaan way xaliyaan Soomaaliland waxba ka dhaca ma baahan dawladda oo Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud uu mas'uulka ka yahay wax ka dhaceen ceel buur ah wax ka dhaceen lacag badan baa la diray xoolo badan baa la diray dawladdi baa tagtay si dhaqso ah lagu soo xaliyay waay maxay ku dhacday loo xalin laayahay arinta deefo iyo kamxalay ka dhacayso maxaa loo xalin laayahay su'aashaas waa su'aal madaxweynaha u taalo dawladda u taalo ayaan u soo jeedinaynaa inta markay dhacday dadkii la barakiciyay naba meel buu aaday baqaayaadkii inta ka soo hartay waxay tageen deefo tuulada deefo bay iskugu tageen waa tuuladii labaad oo degan marka laba tuula la gubay waxa la dibay tuulada wadaadada Balad Amiin iyo kamxalay baa la gubay matoorihii baa la qaatay basashi iyo wixii yaalay iyo raashinka iyo galeeyda taalay baa la goostay dhacaas dhac xoolo iyo dhacmadka iyo dhiigba intaba waa la galay taas meeshaas ku tagtay 15 bishii July ayaa deefo la isku tagay hadana la gubay intii gubtay baa gubtay hadana ciidankii baa gubay dawladdii baa ka qayb gashay laakiin waxa ka bedelnaa gudoomiyihii baa ka bedelnaa wax kale oo isbedelay ma aysan jirin wadankii in laga kaxeeyo oo laga xasuuqa bay noqotay su'aasha waxay tahay dawladdu ma ka daba tagtay macaawina ma u geysay ma aruurisay dadkii dhaawac ahaa ma aruurisay dadkii mataqaana oo duurka galay ma soo aruurisay dadkii meydka inta qaaday ma duugtay inta ma aysan dhicin maxay ku dhacday waxyaalaha dhaliilaha badan oo dawladdu u tirinayno oo madaxweynaha aan ka rabno inuu ka jawaabo way fara badan tahay gudiyaashi madaxweynaha asaga gobolka inta degan dadka u soo magacaabo inta goor wax soo magacaabahay madaxda gobolada uu soo magacaabahay asoon cidna kala tashanin ayuu magacaabay waxaan u jeedinaynaa madaxweynaha arrimaha noocaas oo kaleenta ah wax aan tirsanayna weey waa madaxweynaha nagi waa madaxweynaha ummadda Soomaaliya waa la doortay ma inkirsanin inuu madaxweynaha yahay waan u ogolnahay laakiin xuquuqdii aan lahayn ayaan ka weynay waxaan weydiisanaynaa cadaalad baan weydiisanaynaa adduunka cadaalad buu ku socdaa cadaaladda la sameeyay wax socon karay ma ay jiraan madaxweynaha ma sameeyay cadaaladii aan ka rabnay ma uusan sameeynin
waxaa jirta waxaan u aragnaa dhibkaas dhib laga dambeeyo aragnaa ciidamada amisom hadday yihiin Ethiopia hadday Djibouti yihiinba waxaan la qabaa walaalkay iga horeeyay mahadnaq waayo waxay u soo gurmadeen inay Soomaali badbaadiyaan waad ogtihiin oo Djibouti waxa loo bixiyay hiil walaal waxa loo yiri waxa weeye inta kale waxay ahaayeen ajnabi baan ayagu laakiin Soomaali bay ahaayeen dawladda kaliya oo horta oo Soomaali ah oo geeska Afrika ka dhisan ama muxuu ahaa ururada igado todobada ku jirto waa Djibouti sidaas waxa loo yiri hiil walaal loo yiri inay hiil walaal inay yihiin runtiina way ku shaqeeyeen wayna u qalmeen aad iyo aad bayna u shaqeeyeen dalkii sidoo ahaa waa isla garanaynaa hadda sidoo yahayna waa isla garanaynaa mustaqbalka say ka damacsan yihiinna waynu isla garanaynaa walaalayaal waxaan idin leenahay hadday dad gaara oo yar idin diideen yihiin waxaan idin leenahay annaga idin ogol inta deegaanka idin ogol inaad joogtaan nabadina aad sugtaan sidaasaan idinkugu baaqayno idin leenahay sii wada nabadii sii wada ammaankiina sii suga annaguna garabkiinaan taaganna haddii aynu u galno arrimaha deegaanadaasi waxaan u malaynayaa taariikh dheer baa jirta maantay la dhihi maayo deefow iyo kabaxanlayaa iskale la dhihi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa arradiisa dadka makaniya arrada ilaahay baa iskale laakiin dadku ku beeraa oo makaniya sida qaaradaha shanta qaaradood sida muxuu ahaa dawladaha sida muxuu ahaa dawladda lafteedu deegaanada ummadda shacabka ku nool ay kala leeyihiin oo ilaahay u kala makaniyey sidaasuu nin walba mataqaanaa wixiisa u maaragtay uu og yahay oo soosta uga xariiqday waxaan u malaynayaa walaalayaal annagu isku sheegi mayno taariikhda aan leenahay oon ku leenahay deegaanadaas waa taariikh fog waa taariikh meesha halkaan fadhido asaaskeedii awey waa taariikh markii gadaal loo raaco waalidkii aan ka soo farcannay meelaha ay joogaan oo ay ku duugan yihiin weeye oo qubuurtooda ay ku jiraan weeyaan halkaa ayada ana waxaan u malaynayaa ma la dhihi karo intaasoo sanaan deganayn ma la dhihi karo waa wax taariikhda ka weyn waay maxaa jira markii aan dhalannay awow intaasi meeshaan ka soo farcannay wey sidaasi darteed loo sheegi maayo wuxuu yidhi warankayga baruurta suran nacasna asagaa nin ragna asaan hungureynaynin nacasna aniga ayaa isaga filan waxaan u malaynayaa taa ayadaa isku sheegi mayno taariikhdan u leenahay dalkaas laakiin ummadda Soomaaliyeed oo islaamkaan u sheegaynaa in badanna waa og yihiin oo deegaanka laakiin dadka kale oo maqlay hiiraan baa lagu dirirayaa meeshaas lagu deefayo kaxeen lagu dirirayaa maqlay baa inuu u sheegaynaa halkaas inaynu tahay meesha abka soo gaareen inaan nahay baan u sheegaynaa intaas waa sidaas tan kale dalka dawlad baa ka jirto inay dawladdu wax ka qabato ayay ahayd Soomaalidu waxay tiraahdaa ninku dilay qorax kuma jiido xaqiiqatan hoos kuma jiido ninku dilay hoos kuma jiido maxaa jira uu ku dilayba inuu intuu ku laxjaalaysto hoos kugu jiido lagama yaabo dawladda tan Xasan Sheekh Maxamuud baan anagu ka hadlaynaa oo head office-ka uu yahay waxa ay mataqaanaa ay guud ahaan beelaha aan ka dhalanay ay u tahay waan garanaynaa khaasatan beeshan surre waanu garanaynaa waxay noo taagan tahay ninku dilay hoos kuguma jiido xaqiiqo way taayada waayo baabur sheerinkeedii iyo sida loo dhaqmay ayaynu garanaynaa mar hadday sidaasi jirto oo adiga aadan ciidankiiba aadan waxba ku lahayn hadduu military yahay hadduu muxuu ahaa nabad sugid yahay hadduu yahay booliis yahay hadduu asluub yahay haddaadan waxba hal taliya haddaadan lahayn waan isgaranaynaa annagu wixii aan la ku lahayn dalka waa garanaynaa iyagiina waa laga qaaday oo waxaa la yidhi ooma qalmaanba ayadoon ognahay Soomaali taariikhda ay ku lahaayeen iyo sida ammaanka dalka ugu soo dabaaleen sida Major General Cabdikariin Yuusuf Aadan dhaga badan oo kaleeto waa garanaynaa Xasan Sheekh Maxamuud markuu bilaabay dhibaatooyinka inuu cayriyo
taliyaasheedii uu bilaabay si aan looga hadlin waayo ninka taliyaha hadduu taagan yahay ma suuroobayso in dadkiisa hoostiisa lagu laayo ma suuroobayso haddee markii aanan qofna kuu joogin meesha ceelka laga cabahayo dowladnimadu waa ceelka laga cabahayo markii aadan qofna ku lahayn xoolahaaga inaysan cabaynin halkaasa laga garanaya xasan sheekh maxamuud waxaynu ka garannay oon mataqaanaa runtii ay tahay inaanba marka horeba aan nidhaahno xasanow saa noo yeela maya inta marxaladooda la soo maray baanu garanaynaa walaalka iga horreeya carab ku dhuftay runtii reer hiiraan oo hore hiiraan ku dhashay asaga oo garanayo wax walba annaguna waa wada garanaynaa kulligeenba laakiin asaga uu ku dhashay inta marxaladooda la soo maray waa isla garan inta guddi oo meeshaas aaday waan garanaynaa Soomaali si ugu xumad waan garanaynaa warbixinadii la keenay baan garanaynaa oo intaas aan maqlaynay mid walba xasan sheekh maxamuud madax meel ka sareyso la salaax malaha la yiri xasan sheekh maxamuud xafiiskiisa la keenay hadee xafiiskiisa hadii la keenayna ilaahay ma qadarin inuu mas'uuliyadiisi uu qaato uu lahaa oo ilaahay uu aakhira kul xisaabtamayo ma uusan garanin waayo كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته إمام وحالي هذا كان صلاة الكبح كلية المير هذا إمامك وحالي هذا نك أوتاليا دلك أي سجا ومركز أيضا مار دولة كده سنتين كأوتاليا إمام لي هذا إمام لمديسي وحكوا سمايي من الأحد وسماييه ده وحلا وضع كايوي taasina waxa weeye annagu runtii markii horeba ma ana ka filayn wax weey laakiin isagay u fiican tahay qabrigiisa iyo qiyaamihiisa inuu fiirsado waa wax isaga u roon wey runtii ma aha wax anaga kaliya noo roon asagay lambar 1 asay u fiican tahay arrinka isaga inuu sameeyo waayo aakhiradiisa taabanaysa insaankuna waan ognahay oo nolosha dhan waa temporary waxa rasmiga oo muxuu ahaa raasul maalka waa amalkaaga adiga oo aakhira ku raacayo هذا عمل كيس قف كودوها الليو أصيح بالله إمامنا وياي هالكاسي وحكا إيمانا يسوع عذابك إلهي باك واجبه عذابك إلهي أسكو كيهي نبت قليل الآن رحمة الله الرب الآن إيو عذابك رسمك هاي ودودا بيو آخرة انت أساس ودر مريس ولا ليال قديدي مركي أي واجبك وسوق بسدين هير وزراء iyo heer muxuu ahaa xildhibaan ay ahaayeen waajibaadkooda soo qabso warbixinta keeneen waan ognahay oo muusan dhaqaan waayo dhinac oo asagu jiray ayay dib ku jiray mar hadduu dhinacaas dib ku jirayna ma aysan u suuroobin inuu madaxweynahan u dhaqmo oo siraado aleelay halkan wax ka qabanayaan oo aakhirada fiirsanayo asaguna annaga waxba waxsan loo sameyn haddana isku day baa dhacay intii uu maqnaa oo dalka ka maqnaa كسميه مدحوينها أهنا أفيانك بارلمانك فدرالك سوماليا أيا وحسكو دايا مسؤولية ديسي إنو قاته وقاتي قرال بقري أمر ببحيي قوليه حكومة فريسي أما قوليه وزرادة وحاصوب حي إن تلك هالك أسيجوغة أو شعبك لك العليو وإذا ما الله دحدقه وإذا ما أنا بضول عن انت واجبات كود لسيو waa mahad celinayna ninka la yiraahdo maxamed sheekh Usmaan Jawaari afayeenka baarlamaanka waan uga mahad celinayna intii yareedo madaxweynuhu maqlo asna ku simaa tilaabtu u qaaday wixii uu sameeyay waan uga mahad celinayna markii ugu dambeysay xasan waan garanaynaa hadda waa baxay orod isku taabtay horta intuu sameeyay buu shir sameeyay yuu la shiray labadii beelood oo surre iyo xawaado isay beel kamid la shiray oo xawaado la shiray surrana hal qof uga ma yeerin xataa hal qof uga ma yeerin لقم بيليهين سر سياسة بيليهين وحول بيليهين وحدت كليه ليهين ما أوصل ويرنا ما أوصل هنا ورا رمي مع الربا إن أنقلوا سلا يساسنا كقولان الربا ما أوصل دهين حوال ويري وعقوده كرو كده هاي وبحي هيران بهتنا تجي أيجي والله شري دتك كلاته ما أوصل ويرين وأنا أقول عدالته ninka xaakimka oo maxkamadda fadhiya markii loo imaado sharciga islaamku wuxuu diidayaa iska dhaaf wax inuu qof u eexdee wuxuu diidayaa ninkan kan inuu kursi u dhigo kan uu taagnaado u diidayaa ma ogola labada qof nin ama wada fariisi
labada shakhsi ama wada istaaji cadaaladdu waa saas midna ha ka wargurin midna muxuu ahaa ka wargur shareecadu ma ogola waa inaad ama ka wada aamustid ama muxuu ahaa aad ka wada wargurtid wey haye aad tiraahid ama aad shib tiraahid oo mid walba hadalkiisa hadal markaad tiraahid keliya aad ka aamustid laakiin madaxweynihii qaranka wuxuu sameeyey hal dhinac buu arkay oo isla hadlay wuxuu kaloo sameeyey natiijadii soo baxday oo isaga uu sameeyey waxa weeye in uu yidhi cid kaloo imaan kartaa ma jirto hiiraan cid kaloo imaan kartaa ma jirto wuxuu ka wada waxaa weeye intaan maqnaa baa laga faa'iidaystay si aanan wax u rabin baa wax loo maamulay saas darteed cid imaan kartaa ma jirto maxaa jira go'aanadii gadaashiis la qaato la gaaray iyo mas-uuliyaddii muxuu ahaa ee ay qaateen dadkii madaxda ah oo halkaas joogay ayaa u cuntami weyday waayo gardarradu og yahay haddee soomaalida waxay tiraa gardarro garba og iyo cudur goori og midna ma haraan nimankaa intaas oo duulaan ay qaad intaas dhibaato ay samaynayeen waxay ogaayeen waa xasan sheekh maxamuud ilaahu madaxweyne kale meesha joogo weligood ma aysan dhaqaaqeen isagaasay isku hadlaynayeen iskuna hadlaynayaan haddeer waxaa weeye marka waxaan leenahay xasan akhriisa oo muusan turanin mas-uuliyaddiisina muusan ilaalinin waxaan leenahay xasanow adiga taada daryeel adiga taada fiiri oo mas-uuliyaddaada fiiriyo aakhiradaada fiiri markii hore oo intaasoo duulaan la qaadahaya oo intaasoo dhibaataa la samaynaya kolleyba wuxuu islahaa nimankan yartaa cagtaa la marin doonaa ilaahay ma dhihin in yansurkum allaahu falaa ghaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdihi wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun ilaahay subxaanahu watacaala saasuu yidhi waana ognahay oo dulmi sidiisaba meela laguma gaaro sidaa intaasaan madaxweynaha ayaan oga harayaa waayo madaxweyne la doortay weeye baarlamaan baa doortay baarlamanka waxaa soo xulay oo doortay odayaashii dhaqankana waxaa soo doortay oo soo xulay shacabkii ay ka soo jeedeen ka dhasheen nin walba shacabkiisi baa wuxuu yidhi ninkaana namadoon noo ama ugaas noo ama suldaan noo hadba siiqadii la doono ha loogu dhawaaqee marka iyada ah madaxweyne sharci uu noqday asagu weliba nasiib wanaag dowladihii hore oon la aqoonsanayn oo kumeelgaarkaa ma ahee waa xukuuma rasmiya wey xukuuma federaaliya rasmiya wey xukuumad la aqoonsaday waaye taa iyada ah marka waxaan garan karnaa inay intaasna isaa uga baxayaa waxaan leeyahay walaalaha iyaga muxuu ahaa gardarrada iyo duulaanka qaawan soo wada oon mar ayn ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar ahayn oo wakhtiyada la barakaysanoo ay ka mid tahay bisha la sooman yahay oo islaamku sooman yahay oo 12 bilood ku jirta oo ay ka mid tahay ciidaha muslimku uu ciidayo dagaalka soo qaadaya oon haba yaraatay haddana ku soo qaadahaya dad meesha ilaahay makaniyey oo kafac ay u joogeen walaalayaal waxaan leenahay dulmi waa dulmi ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiid qudsi wuxuu ku yidhi innii xaramtu dulma calaa nafsi anugu waxaan ka xarimay naftayda dulmi ee bini aadamow ha isdulminina dulmi ilaahay waa diiday waxaa la yidhi adulmu dulumaatu yowma alqiyaama dulmigu wuxuu leeyahay mugdiyaal qiyaamaha qofka daalimkaa mugdi buu ku soconayaa qiyaamaha marka walaalayaal dulmigaasu idinma wanaagsana idinma habboona annagu ma rabno waa ka xunnahay qof islaama inaan dagaalanno waxaan ka sii xunnahay qof soomaaliya inaan dagaalanno waxaan ka sii xunnahay qof jiiraana inaan dagaalanno waayo xuquuqdii saddexdeed baan isku leenahay xaqulislaam wa xaqulqaraaba wa xaquljiiraan baan isku leenahay saas darteed ma rabno dagaalkiinna mana u xiise qabno adinka iyo soomaalida kaleba waxaa kun aasan aabbayaashood fiqi cumar iyo fiqigii la odhan jiray fiqi axmed baa ku aasan oo dadkaa ku abtirsadaan iyo in kaloo badan iyo fiqi walaal waxay caddaynaysaa inuu yahay meel soo jireen ah ee dadkaa ku noolaayeen marxaban waxaa jira gobolka hiiraan waxaa ku wada nool ummado fara badan
oo lagu qiyaaso ilaa 14 beelood sida dadkooda aqsoon yahay labadaa beelood iyo beesha hadda isku dayaysa inay muquuniso laakiin aan muquunin doonin maahane inta kale waxay qiraysaa in dadka meesha leeyahay nin ka hadlay idaacadda oo beesha hadda meeshaas ku duulaanka oo odaya wuxuu yiri meesha ayaga ale beeray ku filan jireen marqaati ayada ku filan bal meesha dadka haduu leeyahay beeray ku filan maxaa laga rabaa meel iska daayo okay meeshan dagaalku markuu ka dhacay waxa ku dagaalamay dad weeraraya iyo dad la weeraray dadkaanu dad meeshan ku nool bay ahaayeen waa la weeraray maxaa lagu weeraray marka beel baa weerartay laakiin beershu maxay ku weerartay waxay ku weerartay ciidankii dawladda hubkii dawladda ayay ku weerartay waa la ogyahay amisom baa joogta halkan khaasatan Djibouti oo loo baxshay heel walaal Djibouti waxay tababartay 90% meeshaas dagaalamaysa hubkayga u dhiibtay hubkii bay la tageen dadkii bay ku weerareen waa ku barakacayeen ilaa dad hub dawladeed haysta oo rasaas dawladeed haysta oo ciidankii dawladda haysta iyo dad shacab oo beerle isla mid ma saasa dadkii lagu barakacay dadkii way soo abaabuleen meeshoodii bay ku soo laabtay waxa cadaynaysa saa inay u dhacday ciidamadii markii la weydiiyay Djibouti oo meesha joogay way cadeeyeen dawladda madaxweynaha horeeyay waraaq u qoreen baarlamaanka ay qoreen dawladooda ay qoreen Ismaaciil Umar Geelle ay cadeynayaan in hubkii iyo wixii ciidankii dawladda qaranka ay tababareen qabiil loo adeegsaday waxa kale oo cadeynaya meesha dawladdu waxay ka bilaabataa gobernatooraha waa beesha dagaalka wada waxa ku xiga wasiirka arrimaha gudaha waa beesha waxa ugu sareeya waa madaxweynaha wax walba beeshu ka fadlanaya sida rag hore sheegay anaguna aan cadeyn doono waxaan kala cadeynaa Djibouti waa Soomaaliya beel hadii anaga inuu beel tahay waxba nama tarin markaan weydiinay war meeshan hubkii baan la ku dilay waxay yiraahdeen anagu dawlad baan taageernaa dawladda intaan sheegay weey anagu waxba kuma leeyin seenoo taageerayaan qabiilna ma taageeraan waxaan mahad celinaynaa qabaa'ilka sharafta badan ee deegaanka nala degan ee nabadda ka shaqeeyay ee cadeeyay inuu beesha xawaala gardarro ku wado aad baan u mahad celinaynaa iskuna dayay inay nabad ka shaqeeyaan waa mahad celinaynaa markuu raadiyaasha ka hadlay madaxweynuhu hadal wanaagsan laakiin ficil ma aragno waxaan aragnaa ficilkiisa in madaxweynaha ka doortay arrin qabiil ama abtirnimo oo raqiis ah oo aan ahayn arrin madaxweyne ama qof masuula daliilihiisa waxaan ku xoojinaynaa wasiirka arrimaha gudaha macaawin u qaaday sidii rag hore sheegeen dad kale barakacshay buu qaaday dadkii barakacshuu siiyey waa cadda marka hadda wasiirka sidaa samaynaya ninka ka raaliga asna waa la samaynaya yoom min al-ayaamna arrinkaas maxkamad waa la soo taagaya hadii alla idmo wasiirka iyo cidda ka dambaysa annagu haddaanu nahay beesha sure waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo waxaana ku yaqaanaa nabadgelyo meelo badan baan degannahay cid ma gardaraysanno cidiina gardaraystaana nagama faa'iido waxay yiraahdeen waxa jooga shabaab iyo ONF ubadnimanay u baxsheen war lugba kuma lihi waa ninkii kitaabka ku akhrin jiray quraanka ku dhigi jiray cilmiga aqliga ku ahaa maskaxdaadii weeye horta ONF meeshu maahna waxa looga jeedaa beeraha kabaxanley degmada kabaxanley iyo beerta deefow iyo aseendooyinka isaaran ya shababaha looga jeedaa waan fahansanay intaas looga jeedaa aqligu haduu beer iyo dhul ka dhigo shabaabna ayaga ka jawaabayo taas intaasaan uga gudbaynaa waxaan leenahay nabad qabiilooyinka wax laga xishooda qabiil degma ciidan laga qoray waa qabiil waa reehbel baa loo yaqaan markaas waxa leeyahay ciidankii qaranka halka tagayo halkaas amay sameeyo oo maxay sameeyeen deefooyo ka baxan leebay ku dileen waana soo gubeen masaajidkiina waa gubeen waa ciidankii qaranka warma waxaan dhageysanaa oo la dhageysan kara waxa laga xishooda nidaamka dawliga iyo systemka jira midna inuu shaqo ku lahayn waxaan soo dhaweynaynaa wax alla wixii nabada oo ilaahay dartiisa wixii wada walaalkii wada فليتفضل بان لنا waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ambaarayna ficilka khaaska ah oo madaxweynuhu uga dhaqmay sida hogaamiye kooxoodkii sida hogaamiye ka xataa uma dhaqmi karo waxa cad waa la gubay
deefow iyo kabaxanley xoolahoodii baa la gubay waa la barakiciyey dadkii baa la laayey hantidii baa la gurtay intaasba documentary weeye wax duuban weeye waxaan codsanaynaa beesha surre waxa aqoon-yahanada meel kastay joogaan inay arrintaa documentariga ah maxkamadaha adduunka inay u soo bandhigaan si degdeg ah inay u soo bandhigaan yoomal min al ayaam bayna arrintaa imaanaysaaye guri inta gubtid dee mukayf ku shidanaan maayo waa lagaa dambeeyaa maxkamadaha adduunkayna arrintaasu yaallaan waxaan hadda maalin dhaweed maqlaya military groupka waxa eedeeyeen way caddeeyeen niman saraakiila oo jannaral ah yaa arrimaha ku leglabayna waa run waa caddeeyeen